madaxweyne Farmaajo oo xukunkiisu sii muunad iyo macna beelayo ayaa jidgooyo u dhigtay doorashada Ceelwaaq oo ay dhaqaajiyeen guddiga doorashooyinka oo taageero ka helaya ra'iisul wasaare Roble xilli Axmed Madoobe uu goobjoog ka noqday doorashada 11 xildhibaan oo lagu doortay Ceelwaaq. madaxweyne Farmaajo oo u muuqday inuu quus gooyay ayaa isticmaalay khamaar siyaasadeed. wareegto uu soo saaray wuxuu sharci darro ku tilmaamay waxa uu ugu yeeray doorashooyinka isbarbar socda ee Garbaharre iyo Ceelwaaq. Farmaajo ayaa u gacan haatiyay madasha wadatashiga qaran iyo gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka si ay saami xildhibaanna uga soo dhiciyaan dambiisha 16 kursi ee Axmed Madoobe uu sito. madaxweyne Farmaajo ayaa markan miciinsi bidaya heshiiskii 17 Sebteembar 2020 qalinka lagu duugay gobolka Gedo oo ay sanooyin ku herdamayaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe. waa xudunta khilaafka doorashooyinka dalka 3 sano ka hor doorashadii Kismaayo. Farmaajo wuxuu gaashaanka u daruuray sax ahaanshaha dib u doorashada Axmed Madoobe. wuxuu ka takooray madaxda maamulada sidii hal cadda qabto oo kale xilli la isugu imanayay shirkii amniga qaranka. madaxweyne Farmaajo wuxuu hogaamiyihii hore ee dooxada Jubba ahaana asaasihii Jubbaland maanta Axmed Madoobe oo aqoonsaday madaxweyne ku-meel gaara muddo 2 sano ah. dharaarta dabadeed waxa kala dhantaalantay Jubbaland iyadoo Gedo laga unkay maamulka madax bannaan Axmed Madoobe. Farmaajo wuxuu ku daabulay ciidamadii ugu badnaa ee gobol la geeyo garoonka diyaaradaha Garbaharre. maalmaha qaar waxa ka hoobanayay diyaarado sida ciidamada militariga Soomaaliya oo halka in muddo ah kula dagaalamayay waxa uu Farmaajo ugu yeeray jabhad ka amar qaadata dowladda Kenya tiyo uu hogaaminayay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo kolkii dambe isku soo dhiibay xukuumadda Farmaajo. Axmed Madoobe ayaa u muuqday inuu Farmaajo ku legday ringaha doorashada dadban uuna uga awood roonaaday doorashada Ceelwaaq xilli madaxweyne Farmaajo uu Garbaharre ka bilaabay doorasho aan aqoonsi haysan oo ay hogaaminayaan garab ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal. madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhaqaaqay khamaar kale oo siyaasadeed tiyo la fahansan yahay inuusan wax badan u goyn doonin. mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland oo la hadalnay ayaa yiri Farmaajo doorashada Gedo waxay gacantiisa ka baxday maalintii ay siseegeen ra'iisul wasaarihiisa Roble. waxba u goyn mayso dhaqdhaqaaqa iyo doorashada foodada ah ee Garbaharre waxayna dhaawici doontaa ololihiisa dib u doorashada waana ka qoomamayn doonaa mustaqbalka dambe. doorashada aan taageerada haysan ee Garbaharre waxay sawiraysaa in Farmaajihii sheegi jiray inuu yahay wadani qabyaalada ka fog uusan qabiil ka marnayn bacdama laga furfuri la yahay 16 kursi oo beeshiisu ay leedahay tiyo uu banaajo ka ahaa isagoo madaxweyne ah 220 xildhibaan oo beelaha kale ay leeyihiin sidan oo kalena lagu soo doortay. Farmaajo oo garab ka helaya qoorqoor lafta gareen iyo Cali Guudlaawe wuxuu isku dayayaa inuu beesha caalamka ka iibiyo inay Gedo ka socoto isbarbaryac doorasho oo la aqoonsan karin cidii ku soo baxda si uu u helo saami ka mid ah kuraasta gobolka Gedo oo ku jira gacanta Axmed Madoobe. ra'iisul wasaare Roble oo ay Farmaajo ku culoobeen maamulka doorashooyinka dadban wuxuu gacanta ku haystaa libinta doorasho Farmaajo looga adkaaday oo ka dhaqan gashay Ceelwaaq. waxa indhaha lagu hayaa sida ra'iisul wasaare Roble uga falceliyo khashkhashaadka doorashada iyo dibirta siyaasadeed ee Farmaajo uu dhigay Garbaharre tiyo Axmed Madoobe uu xildhibaan soo siiyay Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo ka mid ah saaxiibada ra'iisul wasaare Roble ahna wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. waxaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed la socodsiinaya in hay'adda dhinaca gargaarka ee lagu magacaabo Danyar Daryeel and Development Organization ee fadhigeedu yahay magaalada London ee UK ay bulshada Soomaalida hal qeyr guud ahaan ugu baaqayso inay ka qayb qaataan caawimaadda dadka baahida gaarka qaba ee Soomaaliyeed haddii ay tahay waqtiga caadiga iyo haddii ay tahay bisha Ramadaan intaba. madaxda sare ee hay'adda Danyar Daryeel and Development Organization waxay qabtaa fikirka ah inaynu isu kaalmayno meel kasta aan joognaba si Allah awood leh uu nagu kaalmeeyo ee wixii faahfaahina shaashada ka arka oo kala qayb qaatay hay'adda guud ahaanba arrimaha u danaynta iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qaba.